macalinka kumeel gaarka ah ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa aaminsan in Marcus Rashford uu noqon karo mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican adduunka isla markaana uu la mid noqon doono Super Harry Kane. Manchester United ayaa axadda berita marti u noqon doonta Tottenham Hotspur Wembley Stadium si ay u wada ciyaaraan kulankoodii 22aad xilciyaareedkan horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku qanacsan ka hor kulankan in Marcus Rashford uu cadeyn karo inuu yahay weeraryahan halis ku ah goolka hortiisa. Marcus Rashford ayaa inta uu ka hoos shaqeynaya tababare Ole Gunnar Solskjaer waxa uu dhaliyay 3 gool afartii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka Premier League, wuxuuna aaminsan yahay in 22 jirkan uu ka mid noqon karo mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican adduunka. Waxa uu noqon karaa weeraryahan weyn. Waxaa suuragal ah inaan ka hadalno Super Harry Kane inuu yahay mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican adduunka. Waxaan hubaa in Marcus Rashford uu awoodi karo inuu gaaro heerkaasi oo kale. Waxa uu leeyahay awood uu ku gaari karo heerkaasi. Waxa uu leeyahay xawaare laga cabsado haatan. Waxa uu noqday mid xoogan. Waa ciyaarahan xiiso leh in lala shaqeeyo ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay hogaamiyaha kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer.